الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأحبة waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa oo ah amarkiisana in la qaato wuxuu inaga reebayna aan iska dayno wixii dembi inaga dhaca ama amarkii aan ka gaabinno ama wixii laynaga reebay aan ku dhacnona aan towbada iyo u soo noqoshadii iyo kalaabashada ku dadaallo noloshu waa maalmo kooban si aad u noolaataba waa noolaan intii lagu qoray markii wakhtigaa uu dhammaadana waa qasab waa tegi ama si xun u noolow ama si fiican u noolow waxaa muhimkiihi markii noloshan laga tago oo maalmo koobana waxa ka dambeeya inuusan kaa xumaanin weeye oo nolosha dambe aynan inaga xumaanin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u dadaalla dariiqiisa ku dadaallo si aan daarta labaadna liibaan u gaarno jumcadii hore waxaynu ka hadalnay sida diinteenna islaamku dadku kasabka iyo shaqada inay shaqaystaan oo risiqa ilaahay dhulka uu qoray iyagu ay sababtiiyo dadaalkeedii raadsadaan loo faray diintuna ay dadka uga reebtay in la tuugsado dadka la hoos fadhiisto oo gacanta la hoorsado oo qofkii shaqaysan kara ay ka fiican tahay shaqadu aynan muhiimaddu ahayn shaqadu magaceedu ma fiican yahay mise waa xun yahay dadku ma qadariyaan mase dhib badan tahay ma hawl yar tahay aanan ahayne keliya laga eego xalaal ma tahay shaqo kastoo dadka agtooda ka xunna ka fiican tahay inuu qofku gacan horsado oo tugsado dad wax weydiisto markii kasabkaa shariicadeennu ina farayso waxaynu soo sheegnay inuu yahay kasab xalaala inaan raadinno oon adduunkana ku intifaacno aakharana ku badbaadno oo ilaahay subxana wa tacala agtiisa janno kaga helno wixii aan sadaqaysannana laynaga aqbalo wixii aynu dunida kaga tagnana aan dembi iyo daalac laynoo raacan si kasabkeennu xalaal u noqdaaye waxyaabo badan baa inaan ilaalinna loo baahan yahay waa shaqayso oo jaantaa furan maaha waa shaqayso oo waxna ilaali wax kastabana camal kastooo la sameeyo cibaadi iyo camal kaleba shareecadeennu xuduud iyo aadaab bay u samaysay si uusan xuquuq kalena ugu xadgudbin xaddii loo baahnaana uusan uga bixin waxaa ka mida hal mid baan ka hadli doonnaa maanta waxyaabaha in la ilaaliyo ay tahay jumcooyinka dambena qaybo kaleaan ku dari doonnaa haddii alla yidhaahdo intaana ajaashiya cumriga aynugu simaan waxaa lagama maarmaana qof kastaoo muslim oo kasab iyo risiq raadinaya inuu run iyo ammaano ku dadaalo inuu ka run sheego wixii uu ka hadlayo wixii uu gudanayana uu aamin ka noqdo ama ganacsi ku jir oo wax iibi ama qof shaqaalo oo ganacsiga gaarkaa u shaqeeya noqo ama dan guudi yahay adag guudiya howlo guud ka shaqe ama shaqaalo noqo oo dad kale u shaqe ama adigu lahaw waxa aad ka shaqaynayso ganacsi baan ka shaqaynaa badeecad baan iibinnaa ka run sheeg mid beena ha gadin mid la soo xaday ha gadin ha ka been sheegin tilmaanteedoo waxaanay ahayn ha ka dhigin ka run sheeg badeecadda aad gadayso ama dhar gad ama raashin gad ama daawo gad ama guryo gad ama gaari gad ama wixii kale ee dooni gad waxaad gadayso inaad ka run sheegtaad u baahantahay oodan dadka ku khiyaamin oodan wax beena ka gadin oo waxaad gadaysa siduu yahay aad ugu sheegto haddii malabkii sonkor lagu daro caanihiina biyo lagu soo daro guryihii la dhisayeyna birtii iyo cabirkii laisdaba mariyo gaarigiina bambeena lagu soo xiro qalabkii korontadana mid faaga lagaa iibiyo aad iibiso waxaan laga kasbanayaay hadba inta uu beenta yahay buu xaaraan yahay
kasab xaaraanaad kasbanaysa wa xaaraanaad iibinaysa inaad run ka sheegto aamin noqotaa lagaa rabaa haddaad shaqaynaysood adugu qof meel ka shaqaynaya tahay shaqada laguu dhiibay inaad aamin ku noqotaa lagaa rabaa mushaar baa lagu siiyey wakhti baa lagaa iibsaday joogitaankaaga ha noqdo qabashadii shaqada ha noqdo sidii la rabay inaad u gudato ha noqoto xuquuqdii ilaalinteeda aamin baa lagaa rabaa dadkaa dunida jooga inbaa derisa ama suuq derisa ku noqdaan ama xaafada ku noqdaan inbay dadku mar walba ismudan xuquuqda dhex marta lama wada qori karo xuquuqda dhex marta markhaati looma wada yeedhi karo ciddii ku aamintay xuquuqdeeda ilaali ammaanada ilaali ilahi wuxuu yidhi fain amina bacdukum bacdan qaarkiin hadduu qaarka kale aamino falyu'addi aladii tumina amaanatah qofkii wax lagu aaminay ammaanadii ha guto ha ilaaliyo walyataqi illaaha rabbah rabbina ha kaga cabsado hadduusan qofkii ammaanada kuu dhiibay caddayn karin ama aanu ku arkaynin allah baa ku arka aakharana way kaa dambaysaa shaqaa laguu dhiibay lagulama joogo ha dayicin haddaad tiraahdo dadkii kuma arkaan ama kaameeradu kuma sawirayso haddaad tiraahdo malaa'igtii qoraysay iyo tii rabbi berri xaggeed ka geli kasabka aad saa ku qaadatay iyo mushaarka lagugu siiyaa xaaraan kugu noqon naftaadii xaaraan baad siisay ubadkaaga iyo ilmahaagina xaaraan baad ku korisay waxaana dhici karta waalid kugu soo daalay oo hadda ku mutayna iyagoo da' iyo cimri jooga inaad xaaraan quudiso xirfad baad leedahay shaqaa laguu dhiibtay xisaab baa lagu yidhi xir guri baa lagu yidhi dhis gaari baa lagu yidhi hagaaji jid baa lagu yidhi ka shaqee shaqaa laguu dirsaday xirfad baad leedahay ku aamin noqo fain amina bacdukum bacdan falyu'addi aladii tumina amaanata shaqadaan qaban intaasaan ku qaban waa laguu dhiibay waa lagaa tegey si ammaana la shaqada u qabo sidii lagugu aaminay u samee falyu'addi aladii tumina amaanata weligaana xasuusnow malaa'ig baa qoraysa rabbina waa ku arkaa walyataqi illaaha rabbah sidaa haddaad yeeli weydo sidaa haddaad yeesho ood ammaanadii ilaaliso oo wixii laguu diray aad ku dadaasho adduunkana risiqee xalaal buu kuu noqon inaad ilaalisayna abaalkeedu waxaanaad ku qaadatay keliya ma aha ajri weyn oo aakharaa kaa horeeya nabigu wuxuu yidhi alay slam 3 qofkii isku darsada muslim noqda isagoo ganacsanaya oo wax iibsanaya ama xooggiisa iibsanaya ama xoolo iibsanaya run sheega aaminna noqda aakhare marka la tago ambiyada iyo sidiiqiinta darajada ku xigtaa iyo shuhadada darajada saddexaada kuwaasaa lala soo xaadirin darajo weyn buu yeelan waa la soo dhoweyn muxuu ku mutay xuquuqdii dadkii uu ilaaliyey oo ilaahay ugaga cabsaday inaad xuquuqdii ilaalisayna xoolihii baa xalaal kugu noqdo lagu barakay inaad ilaahay uga cabsatay oo muslim ahaydna darajadaa weyn baad ku gaartay adoo xamaalanaya oo shaqaysanaya xirfadaadii ku shaqaysanaya xoolo dad hayoo shaqaysanaya ama kuwaagii ganacsanaya oo maamulanaya taa haddaad ilaalin weydo xoolihii waa xaaraan adigiina iimaan la'aan munaafiqaata nabig alay slam munaafiqiinta wuxuu yihi 3 baa lagu gartaa hadduu sheekeeyo been buu daldalaa haddii la ballamana wuu ka baxaa haddii la aaminana waxbuu isdaba mariyaa wuu khayaanaa waidaa tumina khaan horta munaafiq baa tahay ogow munaafiqnimo waad isku hubtaa inta muuqata inta qarsoon ma gaadhay adiga ilaahaga idiin taalla iimaankaaguna iimaan la sheegoo macno lama lihid oo kii aakhara jannada lagu gelaya naarta lagaga badbaadaya oo nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa iimaana liman laa amaanata lah iimaan ma leh qof aan ammaano lahayn xuquuq baa idin dhex marta dayn baa la kala qaataa baaqi baa la ysku yeeshaa xil iyo xisaabaad baa laysu dhiibtaa shaqaa laysu dhiibaa waxbaa la kala gataa waxbaa laysu soo dhammeeyaa ammaanadu waa lafdhabar in risiq iyo kasabku xalaal kuu noqdo waxay lafdhabar u tahay
inaad adoogu duunkii kuu barakaysan yahay aakharana darajo weynaad hesho adiga labadaa kala dooro wixii lagu adduunyadan waxaan kuu qorayna cuni maysid wakhti aan kuu qorayna noolaan maysid intii laguu qoray si unbaad u noolaan laakiin laba kala dooro aduu adduunkaagii shaqaysanaya in aakhare darajada nabiyada oo kaleeta iyo shuhadada iyo sidiiqiinta aad tagto iyo darajada inaad munaafiqiinta ku biirtahay waxaa kuu kala saaraya waxaa ka mid ah kasabkaaga inaad run iyo ammaano ka sheegto aynu runta ku dadaallo aynu ammaanada ku dadaallo nooc kasta iyo meel kastaba kasabka iyo shaqadaada ka shaqe ama kambaniyada iyo sharikadaha khaaska iyo brivatka u shaqe ama kuwada la wada leeyahay iyo dowlad iyo hay-adiya ka shaqe ama shaqo adigu aad leedahay same guri ka shaqe jid ka shaqe dukaan ka shaqe xafiis ka shaqe meesha dooni ka shaqe kasabka ku soo galayaay ammaanada waxaa ka mida xadiidka caaisha nabigu yidhi ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqina ilahay wuxuu jecel yahay qofkii shaqo hadduu qabanayo inuu hubsado shaqo nadiif oo la huba inuu qabto shaqada aad qabanayso shaqo la huboo nadiif ha noqoto walidaalika culamada muslimiinta warada waxaa la weydiiyaa shaqaan ka shaqeeyaa shahaadadan aan ku shaqeeyana melihin laakiin xirfaddii waan aqaan waxay ka hadlaan haddii xirfaddii aad taqaan shaqadiina si fiican u qabanayso waxaad qaadatay waa xalaal laakiin haddaadan aqoonin oo shahaadada aad runba soo qaadatay wixiina kaa duugoobo oo kaa guuroodan aqoonin waxaad ku qaadanaysaa waa xaaraan maxaa wax lagu qaatay an yutqina shaqadii loo diray inuu si fiican u qabto si fiican uga soo baxo taa wayata ilaahay jecel yahay qofka ku jeclaanayo inaad isdaba mariso oo waxaan jirin u samayso oo wixii ay musuq maasuq ku samayso oo shaqadii ka been sheegto ood wax kala khiyaantahay waxaa naartana lagu galo munaafiqna lagu noqdo risquna xaaraan ku noqdo way risq xaaraan haddaad cunto maxaa ka dhalanaya ducada laga aqbali maayo weligaa sujuudda ku ducayso nabigu waxay sooma dhihin ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له دعاء لغا أقبل ماي صلاة الليل سوكع سجودة كو الله بري صلاة قداشا كو هاي محا كو ديدي حرامتي بعد فرح كله جرتاد عنيسا waxaa kuu dheer intaa keliya maaha dembiga kugu socdiya waxaasoo dhan baa kuu dheer kasab xaaraanaad cuntay waalidkaabaad xaaraan siisay cuquubada adduunka laguu soo dedejinayo iyo cadaab aakhare xuquuqdoo lagaa goyn doonaa kugu dheer ilaahaynu ka cabsanno kasabka iyo camalkana aan ku dadaalno inuu xalaal noqdona waa aasaas lafdhabar u ah qofka muslimka ah aynu run iyo ammaano ku dadaalno kasabkeenna iyo shaqadeenna iyo camalka aan qabanayno si ifkana xalaal inoogu noqoto ilaahay inoogu barakeeyo aakharana aan darajaad ugu helno dembi iyo cadaabna ugaga badbaadno ilahi subxaana wa tacaala risiqa xalaashana allah inoo fududeeyo dariiqiisana allah inoo sahlo allahuma inaa nas'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma lamna rushdana waacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaaha أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر